video waxa ku jiro storyline oo qurxinayo I hope that badan inay ka maseeri doonaan videogan ee ayagana jeebka gacanta geli doonaan mar hore taas laga waaye why you do me like Joanna Joanna why you do me like what up my best beautiful people, how you guys doing? Another beautiful day series. One so socda kowde waxna waa sida labaade leskiisu noqoto moogta funky wixii dhow waxay noqotay ma heesi kartaa ana xataa fanaan baarba inaan soo noqdo ma heesi kartaa waa socdo ma heesi kartaa. By the way guys, channelkayga ta ku cusubtahay, don't forget to subscribe right here and don't forget to follow my social media right. Yeah, it's gonna be free for you my beautiful people. Maanta waxaan idin hayaa hees cusub oo la soo diray maantadaana la soo diray. qof baa wuxuu igu soo diray Snapchat-ka maanan daawanin sanada brand new thing waxa ku qoran Khalilula Xasan Gantaal 2018 afinka Xasan Gantaal wili reaction kamaanan sameyn waa markii ugu horeysay Allah waxaan kala kulmi doono my brother adigii nasiibkaaga. I hope you guys are ready with me. Let's get it wrong my people. qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan This is the kind of video I've been looking for, to be honest. runta marka ka hadlo heesaha Soomaalida markaan daawado kulligood horta music inoo cabaar socdo cabaar ha socdo maxaa kugu xigo fanaankii afka nuuxinaayo my life stage ba taagan tahay fanaankii afka nuuxinaayo laakiin heestan inta bilowga aan ka taawaday, to be honest markaan runta idin sheego wallahi waa ka helay maxaa yeelay somehow hal meel kaliya kumaysan bilaabanin mar gabar ay soo socdaan martana la iga hoos maran marba qayb kale oo markab you know within 1 second ba waxa looga dhigay trail amal looga dhigay heesti bilowgeedii waxyaabaha badan aan ka hadlay oo heesayna Soomaalida oo ka maqan waay magacyadii qoraaladii badnaa oo hebel xaasib la hadlay makeup bla 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 bride is daba taxnid kuma jirto so quality video maanan dhamaysan laakiin I hope video qurux badan noqon doono. Let's go. qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan liibankii qayb iyo qoysu helaa oo eedii qalaafiyo faraxay la dagabari doobaan leheediyo qabridaar la dagabari storyline-yada aan ka hadlay waa ku jirta heestan fiiri oo soo kaxiyay gabadhii maqaayadda isla soo baabashaaleen you have to be a gentleman marka runta laga hadlo waa soo kaxiyay gaariga markuu yimaado kula taa marka adigoo gabar kula socoto inaad adigana dhinacaas ka soo gashid ayadana dhinacan ay ka soo gashin no sometimes waa qurux badan tahay gentleman la noqdo especially Soomaalida in raggan romantic ma alla laakiin gabdhaynu fiirsada meeshan romantic not like ajanibo wata hadhow excuse ka dhiganaha laakiin waa just acting waa lagu matalayaa laakiin waa wax jiro marka wax la sameeyna waxa qurux badan inay wax islahaadaan. Let's go guys. liibankii qayb iyo qoysu helaa oo quruxdii hargeysiyo qardawaayo kulalada qabridaar dhexdeediyo faraxay la dagabari videogan I'm sure 100% qarasha galay 100% Xasan Gantaal Kenya ku ogay meeshu joogaadisa ila muuqato waa Malaysia from Kenya to Malaysia oo heesidan la duubayo obviously qarash baa galay
gabadha cadaanka gabadhan oo maleeshiyaanka xataa la soo kaxinayo koleeto free kuma kugu iimaanaysa qarash shaqeynayo moogtahay qarash waliba qarashada oo heesaha Soomaalida galin galay talabaad waan rabay inaan ka hadalno waxay tahay videogan anay hadda aan react gareynayo san qiyaasayo ma ahan kii originalka because videogan qof baa soo qaatay laga yaabay oo soo galiyay YouTube kiisa ka originalka iyo qofka oo soo qaatay isku mala kala quality ma kan hada quality kiisu sibay u dilan tahay marka aniga si lagu soo diray aan click ku siiyay sidaas aan ku react gareynayo original ma ahan kan laakiin I hope ka originalka inuu yahay clean so let's go guys qalilule qalbigeeda yaa dhaya way qiimo badantee kunyaryaa u daawada waa kaas meel boring iga sheega fanaanka marka oo heesta oo video la sameynayo iyo marka codka la duubayo isku mid ma aha codka videoga marka la duubayo waxa la shidaa samiicad baa laga shidaa codkii oo afkiyo nuuxinaya fanaanka markaas video la sameynaa so afkaas la nuuxinaya boring boo qofkii dareemaya waliba 24/7 hal meel u taagnaa sida Soomaalida wax u duubaan waxa waaye fanaankii heestii marka laga duubayo hal qayb darbigan oo kale looga duubayo 4 daqiiqo tusaalaha heestii soconayso 4 daqiiqo meeshan uu taagnaanaya meeshan uu ku qaadaya fanaanku heestii ilaa bilow darbigan uu ku qaadaya kadib meel kale aadan moogtahay meeshii kale tadana same thing darbigaas uu ku qaadaya fanaanki boron noqona wuu daalaya laakiin heestan ay iga muuqato fanaanki boron ma noqonayo ma daalayo melba meel tagoyin you see waxyaabaha heesaha Soomaalida ka maqan waxa waaye si ku soo kooban heesahoodu oo qofkiina boron ku dareemaya ku caajisaya ku daalaya waxay rabaan wixii inay ku sameeyaan within one day heesta gudaheeda within one day lagu sameeyo taasna macquul ma noqonayso heestan haduu ma maraynayna one day 2 day 3 days lagu sameeyo more than 1 week lagu sameeyo qiyaas ama 2 week waxaa yeelay meelo badan ay tagooyin inta iga muuqato let's get on guys kunyaryaa u daawada waa qalilule qalbigeeda yaa dhaya way qiimo badantee kunyaryaa u daawada another level congratulations Hassan Gantal wiligay hees aad leedahay ama video hada maana react galeen congratulations my brother aqoon isku mari laakiin waxaad ii sheegtay maanta funky Soomaali meesha uu joogo qaarna inay u galaan attention iyo hal uu sheega magacaaga qaarna ay u galaan hobby iyo wax oo heybad Ilaahay siiyo talent way kala duwan tahay marka heybada duu Ilaahay ku siiyo wax aad jeceshahay oo talent tahay 24/7 maantina wixii sameeyay jeceshahay aad lug ku haysid qarash iyo wax kastaba aad gelisid laakiin ka attention ku gashid waxa waay hore afan kala waa sameeynaa aslangaas TV gi laga fiirsanayo so that's the difference adin kala sheegaya marka ninka Hassan Gantal ma sha Allah waxa ii cadeysay brother inay hobby ka tahay fanaanimadaadu the way I see heesaha Soomaalida sanadihii la soo dhaafay hees meel ka meel lagu qaadayo oo TV like Amil oo helicopter BMW moto don everything la isugu darayo balas gabar Malaysian la isugu darayo ma arkin brother heeso cusub la raadinayo iyo darbi cadaan la raadinayo sida anigoo kale to reaction sameeynayo la iga papatay this is another level congratulations Hassan Gantal let's go kunyaryaa u daawada qadariyo ku yiraahdo qalanjiyo qowl dabacsan waligeed ya abid quweyo ishmeeyo qadariyo ku yiraahdo qalanjiyo
قول دبعسن واليجيد قول دبعسن واليجيد قاموسكم ميشو بوقتا وكقوريو قراركي كسمايان أرسكو قبلنا waxyar baan rabaa inaan idinka fahansiiyo shalay heestan aan react gareynay oo aan soo geliyay YouTube-kayga heesta gabar baa kula jirtay fanaanki gabadha kula jirtay gabadhi meel bay iska fadhisaa mar kaligeeda mar telefoon ku hadlay mar asigee san ugu agleelaysa si you see mar haddii aad gabar soo wadanaysid ee hees kula act gareynayso heesta it has to be something heesta inay noqoto wax oo qofkii kula socday oo boring ku dareemeyn adigana aad boring ku dareemeyn maadaama aad tihiin laba qofood go some like banaanka tago wax sameeyo baaskiil la wadaa wax kasta waa la isku dayo waa la sameeynaya video-ga waxa ku jiro storyline oo qurxinayo hope dad badan inay ka maseeri doonaan video-gan ee ayagana jeebka gacanta geli doonaan mar hore taas laga waaye but let's go guys إنه قلبان أرسكو قبلنا قاموسكو ميشو بوقتا وكو قوريو كردو إيو تاليحبان أرسكو قبلنا بروحا قيبه هيدان أرسكو قبلنا ويقيم بدنتي ويريا وداودا ويريا وداودا ويريا وداودا ويريا وداودا وقال لولي قلبي يا ديا ويقيم بدنتي ويريا وداودا ويريا وداودا ويريا وداودا ويريا وداودا Congratulations Hassan. This is the kind of videos that we have been looking for. Is video noocan waxaan raadinayna waqti badan wax bulshadeena ku soo kordhiyo wax bulshadeena indhaha u furo especially fanaaniinteena oo wada 1990 meedii videoyada la duubayay ay ilaa hadda ku taagan yihiin war adduunku waa hormaray runta marka laga hadlo marka tahay fanaan isku day fanaaniintan kale waxyaabaha ay sameynayaan ilaa waa magac fanaan baa share gareysan isku day style-ka ayagaba kuwa Afrika joogo kuwa Mareykanka jooga xogaa qaabab ay ka soo qaataan different ay kala soo ka wadaagaan ama adiga ay igaaga la imaa laakiin igi ilaali meesha aad iska taagnaanaysid dadkii ku daawanayna kugu caajisayeen hata tusaale qofka video-ga qofka marka uu daawanayo bilow iyo dhamaad laga uma maleynaa inuu qofkaas ku caajisayo maxaa yeelay qayb ku xigta second by second waa isbedelaysaa meel kale jooga laakiin kuwa kaleeto saddex meel waay waxay u duubaan close up wide iyo mid kale taa iga maqanay waa mid lagu soo dhaweynayo iyo mid laga fogeynayo iyo mid oo jamaciyan ayadan ma fahantay marka saddexdaas asxaabay u duubaan saddexdaas inta kala duubaan ama guriga ha ahaato ama banaan ha ahaato qaarkood fadhiyo ku sameeyaan so it's kind of like wax lagu wareeraa waay laakiin asagantal waxa ku dhilay congratulations video guys you made it and I hope you guys like the video see you the next episode